munaasabad si qurux badan loo soo agaasimay isla markaasina lagu sabootinayay dufcadii afraad ee ka baxda dugsiga sare Sheekh Umar Good ee degmada Dila kuwaasi oo fadhiisan doona imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Soomaaliland ayaa lagu qabtay degmadaasi waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay isla markaasina hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Awdal Maayir ku xigeenka degmada Boorama maayirka degmada Baki maayirka degmada Dila aqoon-yahano wax ka dhiga jaamacadda Camuudiya maamulka shirkadda Somtal ee gobolada galbeedka Soomaaliland nagana aad qayb naga siiso ardaydaasna waxaan u marxaati ka caynaa in la dadaalay waalidku dadaalay waliba diiniyan ay u dadaaleen aayada adduunyadoo dhan bay koobsanaysaa maadi kama hadlayo markaa aakhiraan ka hadlaya haddaynu garanayno qiimahay leedahay waa ammaanada ilaahay uu ina saaray haddii buuraha aanu saari lahayn buu yidhi way marka hore nin kastoo deegaanka u dhashay shucuurtiisa maanta lama marin karo waa yani waa isbedelaya qof kasta oo yani ardayda jecel wax soo jecel aad iyo aad isku bedelaya aad iyo aad bay yani macallimiintii iyo ardayda qalinta midisa ugu mahadcelinayaa inta haddaan ku dhaafo aad iyo aad baan u hambaliyeynayaa ardayda dufcaddii afraad ee dugsigani secondary-ga ee Sheekh Umar Good ka qalin jebisa waa dufcaddii afraad galaaskii yani ugu horeeyay ka qalin jebiya wuxuu ahaa 5 arday galaaskii ku xigana wuxuu ahaa 11 arday galaaskii ku xigana wuxuu ahaa 11 galaaskan maanta la joogo waa kii ugu baraka badnaa oo aan filayno kuwa kalena inay ka sii badnaadaan waxaan idiin sheegayaa haddii aad dadaashaan oo ardayda waxaan la hadlayaa ma jiro wax caqabad ah oo xagga waxbarashada ah oo idinka horeysa oo aan ahayn wax idinka idinku xidhan xagga dadaalka barashadu waa hanaan kaasoo lagu kabto xaqiiqada iyo mataqaanaa waaqaca jira si mataqaanaa bulshadu way hanato deegaan ama sabo ay ku wada noolaato oo mataqaanaa wadajir ay wada noolaato markasta waxay garab taagan tahay dugsiga Dila iyo dhammaan degmada Dila way garab taagan tahay iyadoo la garab joogta kolba wixii ay kala soo karaankeyga ee horumar ah ayay la garab taagan tahay intaad u dhabar adeegteen annaga waxaan la gudboon dalin baytaalkiisu u soconayaa maanta kulay waxoogaa buuga waa keenay hore wax waan u keenay markastana waxaan diyaar u nahay inaan dayda kala soo qayb galno wixii aad u baahantiin idin garab istaago kastaba haatee munaasabadaasi ayaa dhawaq dheer loogu diray qurbajoogta deegaankaasi iyo xukuumadda Soomaaliland ay ka soo qayb qaataan baahiyaha ka jira dugsigaasi Qadar Maxamed Xasan Labaqayle TV-ga caalamiga Somali News Boorama.